السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب عيال ما كسر دنيا كجوتان ما أنت كسر وهذا وركينا مال لها ورك فيلم هذا هندي بوليوود كا أو أنا ما أنت تكوه إنه شيء كوين حساب بدن أو كوساب سنة فيلم هذا هندي أجاي ديفغان أو صان أو لين يا فيلم هذا loogaga hadlayo Hindiya iyo waayihii kubadda cagta hadaba waxa wax kaga sheegi doona filimku soo wada aktarka caanka Ajay Devgan ee loogaga hadlayo kubadda cagta Hindiya meesha taariikhdu kaga jirtay oo Ajay hadaba duubista filimka bilaabay iyo sidoo kale Salman Khan iyo Sonakshi Sinha oo ilaa hadda duubaya filimka Diban iyo qodobo kale oo aflaamta Hindiga baan ku soo qaadan doonaa maanta waxaana barnaamijkeena kan ee aflaamta Hindiga aad markasta kala socon kartaan channelkeena sport channelkeena kan ee madadaalada waxaan markasta ku maqli doontaan wararka ugu dambeeyay aflaamta iyo Bollywoodka iyo sheekooyin badan oo la yaabka dunida iyo iscaateyntii iyo waxyaabo kale oo madadaala hada channelka cusub saaxiib fadlan noo subscribe garay haddii aan ku horumarna maanta warka ku aadan aktarka caanka Ajay Devgan ayaa bartiisa bulshada soo dhigay kaartada filimka uu soo wado ee hadda soo socda magaciisu yahay Maidan filimka kan ayaa ah filim looga hadlayo qisada sanadihii fiicnaa ee Hindiya kubadda cagta ay soo maamuli jirtay Hindiya ayaanu hadda si fiican kubadda cagta aan looga dhaxayn awood badan aan ku lahayn kubadda cagta laakiin Hindiya waxay leedahay sanado qurux badan oo dahabi ay lahayd hadaba filimka soo aadan Ajay Devgan ee Maidan ayaa ah filim looga hadlayo waqtiyadii quruxda badnaa ee Hindiya kamaldaarigu ama kubadda cagtu si fiican u maamuli jirtay oo waliba Ajay ayaa baraha bulshada soo dhigay ambartii soo dhigay kaartada filimka kan Twitterka ayuu ku soo wadaagay aktarka kan waxana filimka kan jawigiisa iyo qorshihiisa uu yahay mid looga hadlayo waqtigii qaaliga ahaa ee Hindiya kubadda cagtu ugu fiicneed oo intii ahay u dhaxaysay 1952 ilaa iyo 1962 waxay ahaayeen sanadihii Hindiya ugu fiicnaa ee ay ku fiicnaayeen kubadda cagta hadda waxay iska noqdeen kuwa filimada xooga saaran mooyaane kubaddoodii cagta way luntay waxa wararku ay leeyihiin Ajay Devgan wuxuu filimkan ku jilayaa macalinka ciyaartooyga kubadda cagta ee Hindiya ayuu ku jili doonaa lagu leeyahay waxaana filimkan la filayaa in uu soo baxo sida qorshuhu yahay 2020 marka aktara badan ayaa ka soo qayb gali doona filimka wax ka jilida waxna ka jilayo oo Ajay uu qaybta ka yahay marka waxa lagu leeyahay Ajay Devgan ayaa baraha bulshada soo dhigay sawirka filimkiisa hadda uu soo wado Maidan oo ah filim looga hadlayo taariikhda Hindiya ay ku lahayd kubadda cagta oo miyaadan ogeyn in Hindiya ay leedahay nin la yiraahdo Sunil Chhetri oo ah mid kamid ah ciyaartooyga hadda kubadda cagta ugu goolasha badan marka laga hadlayo dhanka xulka Ronaldo ayaa ninka xulalka ugu goolasha badan ciyaartooyga waqtigan kubadda cagta ciyaara xulkooda goolasha ugu badan yaa uril marka laga hadlayo waa nin la yiraahdo Ronaldo oo 88 gool dhaliyay laakiin ninka labaad ee ku sixiga hatta ka gool badan ninka Messi ee dunida ugu qatarta badan ayuu xataa ka gool badan ninka Hindiya ka Sunil Chhetri baa la yiraahdo Sunil Chhetri hal gool ayuu ka sareeyaa Messi marka Hindiya marka waxay awood ku lahaan jirtay kubadda cagta waqtiyada filimka looga sheekayn doono oo ah 1952 ilaa 62 Hindiya waxay kubadda cagta ku ahaan jirtay mid qatar badan marka hadda Ajay Devgan ayaa soo filimkan uu hadli doona ama filimkan ku soo jiri doona taariikhda ay Hindiya ku lahayd kubadda cagta oo bariyahan Hindiya waxa la yiraahdaa Hindiya shaqo kuma laha kubadda cagta baa la yiraahdaa Ajay filimkan wuxuu Hindiya dadka ku tusi doona caalamka in Hindiya ay lahayd sanado dahabi ah oo kubadda cagta soo maamuli jirtay Ajay bana ku dijilaya tababaraha ciyaartooyga Hindiya ee kubadda cagta ciyaari doona marka ninkaas Sunil Chhetri waa ninka ugu goolasha badan ee labaad marka laga soo tago Cristiano Ronaldo marka Ajay filimkiisa waan arki doonaa sanada 2020 ayaa uu qorsheysan yahay inuu soo baxo dhanka aktarka caanka ah ee Salman Khan iyo gabadha atrishada ah Sonakshi Sinha oo dhalay aktarkii caanka ah Anjeex ayaan wali waxay duubayaan filimka Diban 3 Diban wuxuu ka qayb ka yahay qaybo badan oo Dibangiya oo aktarka uu keenay Sonakshi Sinha atrishada filimka ay hadda joogtaba leeyahay Jaipur halkaas oo wax ka duubayso filimkan Dibangi oo ay la wado aktarka kan ee caanka ah ee Salman Khan Dibangi ayaa waxa uu yahay qayb kale oo kale waana qaybta saddexaad ee filimada Dibangiyada marka aktarada caanka ee Salman Khan iyo Sonakshi Sinha waxay hadda duubayaan balay Dibangi qaybtii saddexaad oo marka Sonakshi Sinha xitaa waxa filimkan wax qayb ka noqonaya Arbaz Khan oo ah walaalka aktarka caanka ah ee Salman Khan waxaana leeyahay filimkan Dibangi 3 waxa lagu wadaa inuu soo baxo December bishan sanadka kan aan ku guda jirnay ee 2019 ayuu lagu wadaa inuu soo baxo filimka Dibangi actionka ee Salman Khan uu soo waday gabadhan Sonakshi Sinha ay soo wado waliba Sonakshi Sinha waxay hadda soo dhameysay filimkii Akshay Kumar bay ku jirtay Mission Mangal bay qayb ka ahayd ragii wax gabdhii wax ka jiray qayb ka ahayd
walibana aad iyo aad baa loola dhacay gabadhan bandhigeeda filimka hayo Sonakshi marka filimkii Mission Mangal ee Akshay way ku jirtay haddana filimka December sanadkan soo bixi doona Salman Khan ee Dibangi qaybtii saddexaad iyadu ayaa qayb ka jiri doonto maanta iyo aflaanta warka ugu weynaa Hindiya inta aan ku dhaafayna Ajay Devgan iyo filimkiisa Maidan oo ah filimka kubadda cagta Hindiya lagu soo nooleynayo loogana hadlayo dunida lagu tusayo in Hindiya ku ficnaan jirtay Kamal Daariga iyo kubadda cagtu iyo waliba filimka Salman Khan ayaa ugu muhiimsan maanta wararkeena aflaanta Hindiga inta aan ku dhaafayna nabadgelyo